بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا قالي عن جعلها ملك ستاجوكتان وايد سلامك وسود هذا جنال كنا ما يهمي جنال ما أنتم حايدي وذا كاب كيك ما شاء الله تقرح بدن مركي أن سمي سنة سيدان أيو نوغ صوب حي أصحابتي إذا قالي إسلا صعد وناكسن سيدان أصميني يوحيابها أنك سميني إن شاء الله وأنا إذا مهد علينا يا سيدا قروح ذا بدن أيو حرنتهين أصحابتي إذا وأنا إذا جعلها waan idinka raali gelinayaa baryahan waa idinka mashquulay hadii aad ku cusub tahay channelkeena waxaan ku leeyahay walaal soo dhawow subscribe noo saar gambaleelka taabo si aad ula socotid video walba soo gelino hadii aad hore noola joogtay share dheh la wadaag asxaabtaada like-ta noo saar commentiga wanaagsan hoos noogu reeba aad ayaan idinku mahad celinayaa dhamaantiin asxaabta cusub asxaabta hore ila joogtay kulligiinba ku soo dhawaada gacmo furan cupcake-geena aad ayuu u fududay waxyaabaha aan ka sameynayno waa waxyaabaha halkan inoogu diyaarsan waa wax yar oo fudud insha Allah softina ku noqonayo ma sha Allah cupcake yar oo qurux badan wuxuu ka kooban yahay laba bakeeri oo bur ah afar xabo oo ukun ah bakeeri oo butter ah bluban bakeeri sokor ah caana waxa ka isticmaali doonaa bakeeri halfkiisa vanilla iyo baking powder hadda vanilla jecleen waa ka bedela kartaa heel ayaa ku bedela kartaa insha Allah ukunta aan isticmaalayo waa 6 xabo insha Allah waa laba bakeeri oo bur ah bakeeri sokor ah bakeeri oo butter ama bluban iyo bakeeri halfkiisa oo caana ah insha Allah ukuntan ku soo wada jabsanaa meesha waxaan ku shubanayaa sokorta waxaan soo qaadanayaa blendada ama mashiinka lagu qasaayo waxaan bilaabi doonaa insha Allah in aan qaso walaalahayga qaaliga ah ma sha Allah keegan aad ayuu u wanaagsan yahay caruurta uga faa'iideeyo ma baahnid cupcake ka soo gadii supermarket gurigaada ayaa ku samaysan kartaa si yar oo simple ah waan qasaneynaa insha Allah ilaa sokorta ay ka dhamaato oo cream noqdo insha Allah ukunta ay noo soo kacdo ayaan qasaneynaa si fiican ayaa u garaaci doonaa ilaa ukunta ee ka noqoto cream ee ka cuslaato sokorta iyo ukunta kaligeed ayaan isku qasooyaa wax kaleeto kuma darin waa kaasa diyaar ayay ii tahay cream ayay ii noqotay butterka ayaan si yar u shubi doonaa anigoo mashiinka ku sii qasaaya ayaan butterka ku darayaa waxaan ku soo wada cabirtay burka sokorta waxa dhan butterka bakeeriga shaaha lagu cabo qof kasta wuu heli karaa bakeeriga shaaha lagu cabo kan waa la soo dhigtay oo kaliya waa arkaysaan oo maleena caanaha waxaan ka isticmaalay bakeeri half kiis insha Allah walaalahayga qaaliga hadda diyaar ayuu ii yahay kuma sii qasi doono mashiinka hadda waxaan ku qasi doonaa birtaas ayaan ku qasayaa insha Allah waxaan ku darsan doonaa vanillada haddii aad vanillada jecleen waa iska dhaafi kartaa waa ku darsan kartaa heel waxaan ku darsaday qaandada oo teaspoonka oo baking powder ah waxaan ku darsan doonaa burka wax yaraan ku daraa marka si fiican u qasaala kala ku soo darsan doonaa insha Allah si fiican u garaacaya ma rabo inuu iga yeeshto wax kuskus ah si fiican ayaa sidaas ugu garaaci doona walaalahayga qaaliga ah waa idin raali gelinayaa waa boobsiinaya waxaan diidaa inuu fiidiyoga idinku dheeraado insha Allah sidaas ayaa u garaaci doona ilaa uu ka noqdo softy wax burbur ah aan lahayn sidaas ayaan ku soo qasayaa insha Allah markii uu si fiican u soo qaso isku soo laaba doona walaalahayga qaaliga ah aan jeclahay wakaasa diyaar ayuu ii yahay sidaas ayuu iigu soo baxay quruxda badan ma sha Allah biyana ma ahan adeegna ma ahan si qurux badan caanahana waa kaasa si fiican u aragtaan oo maleena halfka aan ka soo reebay hadda waxaan soo qaatay saxankii aan ku ridi lahaay xaanshida cupcake aan ku sameysanayo sidaas ayaan ugu soo wada ridana xaanshida walaalahayga qaaliga ah markaan ku soo wada rida xaanshida waxaan soo qaadanayaa waxaan soo qaadanayaa qaandada sidaas ayaan ugu shubo doonaa insha Allah qaandada sidaas ugu shubanaya insha Allah walaalahayga qaaliga ah
haddaad rabtidna waxaad soo qaadan kartaa qaandada mala waxa lagu dubo midaas ayaa kula shushuban kartaa haddaa isdhehaysa midaan waqtiga ayay kugu dhammaynaysaa waxaad soo qaadan kartaa midda kaleeto mala waxa lagu dubto ama any qaando aa haysatid oo god ah sidaas ayaa ugu shubanaysaa walaalahayga qaaliga ah waa kii labaad aan ku shubanayo insha Allah walaalahayga qaaliga ah cafwan waxaan kaloo haddana aan isdhahay walaalaha ku tus qaandada mala waxa lagu dubo way ka fududahay qaandada yarka ah oo iyo ayaa ku shushuban kartaa waqti kuguma dhamaynayso sidaas ayaa ugu shushubanaysaa laakiin qaandada yar waxay rabtaa qof time badan haayo maanta dhan tartiib ugu shushubayo marka qaandadan ayaa ka fudud sidaas ayaa ugu samaysan kartaa sidaas ayaa ugu shushubanaysaa maasha Allah walaalahayga qaaliga ah kaasaad waxaa ii dhiman 3 xabo ugu dambayso sidaas ayaa ugu shushubayaa midka haafka waxaan ku soo dardari doonaa insha Allah saaidna uu kaaga buuxsamin hadii uu ka buuxsamo wuu ka daadanayaa iska ilaali inuu saaid kaaga buuxsamo qasab waa waxa marka meesha ku shubaysid wax yar ayaa kaaga dhacdhici kara meesha waa in istiraasho diyaar ku ahaataa horay ay isaga sii nadiifisaa insha Allah walaalahayga qaaliga foornadan way ii shidan tahay 180 kor iyo hoos ayay iiga shidan tahay waan gashtay hadda waxaan sameysana waa xabadii labaad insha Allah sidaas ayaa ugu soo shushubanaya isla sidii oo kaleeto waa soo dhameysana waa isku soo laabaneena laakiin xabadan ma buuxsamayso oo 12 xabo fuul ma noqonayo waxay noqon doontaa 9 xabo walaalahayga qaaliga ah keegeygii markii aan soo karsaday kaabkeygani sidaan quruxda badan ayuu inoogu soo baxay soft jileec maasha Allah waa kaas markaa ka fiiqo xaanshidane aan ka fujiyo sida uu inoo noqdo ayaa tusi doona insha Allah soft golden qurux badan kor iyo hoos isaga eg ayuu ii noqday dibkana wuu ka gaabsanaa 180 ayuu ahaa jileec waa kaas markii aan kala jarana waa kaas walaalahayga qaaliga ah sidaas quruxda badan ee suufka ayuu inoogu soo baxay aad ayaa u mahadsantihiin sida quruxda badan ay igu xirantiin waan idin mahad celinayaa dhamaantiin inta fiidiyoga mid lamida ku kulmi doono waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh